mahadsanidin xisbiga dimuqraadiga shacabka Soomaalida Itoobiya golihiisa dhexe qiimeyn ballaaran oo degdeg u galay muddo toddobaad ah qiimeyntaas ballaaranna go'aamo waaweyn ayuu gaaray waxaan ogsoonahay dhawaanahan dhibaatooyinka ka dhacay deegaankeena marka golaha dhexe wuxuu qiimeeyay dhibaatooyinkii dhawaanahan deegaanka ka dhacay iyo dhibaatooyinkii horeba u jiray deegaanka oo si buuxda u qiimeeyay qiimeyntaasna waxaa si buuxda la isla qaatay dhibaatooyinka ugu waaweyn deegaankeena inay ka mid ahaayeen kow nidaam dimuqraadiyadeed inuusan deegaanka ka jirin dimuqraadiyadeednimo xuquuqul insaanka oo lagu tuntay shacabkana dhaawac ballaaran baa loo geystay barakac dil boob xarig ciqaab aad iyo aad u foolxun ummadda Soomaaliyeed wax badan ay ka cabanayeen dimuqraadiyadeednimo nidaam shakhsi maamulkiisa uu ku sii waarinaya dhibaato badan oo culusna deegaanka uu ku hayay ahayd cid alla cid ka soo horjeedana waa mid la caburinay ay ahayd ayadoo la adeegsanayo qaab dhismeedka dawliga iyo qaab dhismeedka amniga deegaanka marka dhaawac ballaaran oo xagga dimuqraadiyadda shacabka loo geystay xurriyadii iyo sharaftii ixtiraamkii shacabkii iyo lumay taasna marka waxay keentay culeys badan xagga shacabka dhaawac badan shacabka inuu soo gaaro taasna marka waa arrimuhu golaha dhexe isla qaatay tan kale musuqmaasuq iyo dulsaarnimo in miisaaniyadda iyo hantida dawladda loogu talagalay in shacabka loogu adeego ku takrifal ballaaran baa ka dhacday xagga mashaariicda ha ahaato xagga iibka ha ahaato ganacsiga xortaana ma jirin oo ganacsigu dad gaar u xirxirnaa dhibaatooyin kontrabaan baa jiray xagga dhaqaalahana dhaawac weyn baa soo gaaray hantidii ummadda waa la lunsaday dhibaatooyin ballaaran oo lasoo koobi karna aad iyo aad u ba'an culeys badan shacabkuna ay gaareen ayaa la isla qiimeeyey waxaa kaloo la isla qiimeeyey in nidaam dowladeed nidaam xisbi nidaam ku shaqeyn iyo hay'adaha dawliga si buuxda u shaqeyn marnaba ma jirin nidaam hal qof kalita wax walba oo ka shaqeynayay amarkiisu kalita lagu shaqeynayay taasna ay keentay inay burburaan hay'adihii waxay u taagnaayeen baarlamankii maxkamadii la faragelinayo xeeraalintii la faragelinayo maamulada xor u ahayn shaqooyinkooda gaarka xafiisyada shaqooyin gaarka u ahayn nidaam ku shaqeyn xisbi ama nidaam ku shaqeyn dawladeed oo dhan baa meesha luntay taasna waxa weeye nidaamka dawladnimada ayaa la lumiyay ka dhigantay si ballaaran taasna waa mid aad iyo aad loo qiimeeyay xagga anshaxa iyo kartida hogaamineed inay dhaawac ballaaran ay ka jirto deegaanka si buuxda loo qiimeeyay marka qiimeynta golaha dhexe kadib xubnaha golaha dhexe iyo xubnaha guddiga fulinta iyadoo isla halgamayaan waxaa la isla gartay xubnahana ay aamineen inay xal ku noqdaan diyaar u ahaadeen 3 xubnood oo golaha guddiga fulinta iyo 5 xubnood oo golaha dhexe ayaa laga saaray si ku meel golaha dhexnimadooda iyo guddi fulinnimadooda laga saaray taasna qiimeyn bay ku timid natiijada qiimeynta ka mid ahayd iyo aaminaadda xubnahaas ay aamineen inay xalkan ay ka qayb qaataan maadaama dhibaatooyinka dhacay hogaamin ahaan saameyn weyn ay ku leeyihiin ama ay ku yeesheen weeye marka qiimeyntaas si buuxda ugu dhamaatay natiijo fiicanna way ka soo baxeen waxa kaloo hadda noo socda qiimeynta guud ee hogaaminta sare ee deegaankeena oo qaab dhismeedka dawliga heer gobol iyo magaalooyinka iyo xafiisyada kala duwan ee heer deegaan waa mid qiimeyn ballaaran baa noo socda qiimeyntaas kadibna dhaliil baa la gelayaa si buuxda la isu qiimeyn doonaa qiimeynadaas markay dhammaadaan qiimeynta golaha dhexe iyo qiimeynta hogaaminta sare annagoo haysana in shacabka odayaasha shacabka matala garaadada suldaanada wabarada ugaasyada dhammaantood iyo dadka odayaasha waaweyn ee ummadda Soomaaliyeed ay dhageystaan ixtiraam ku leh gobolladoo dhan iyo degmooyinkoo dhan matala runtana u istaaga dhinac walbana leh tiradoodu ay badnaan doonto iyo aqoonyahan kala duwan ee deegaanku uu leeyahay aqoonyahan badan baanu leenahay siyaabo kala duwan maamulka dawladda ka baxay ama hay'adaha caalamiga oo shaqeeyaan ama meelo kale ka shaqeeyaan ama jaamacadaha ka shaqeeyaan ama xukuumadeennaba deegaanka ka shaqeeyaan ama heer federaal ka shaqeeyaan dadkaas kala duwan waa shirar ayaa noo dhici doona shirkaasoo si wada jira shirka hogaaminta odayaal dhaqameedka iyo aqoonyahankana guud baa ayaa marka uu ra'iisul wasaaruhu
iyo xisbigeena si wada jir ayaa shir la gali doona shirkaasna waxaa lagu falanqeyn dhibaatooyinka annagu aan eegnay iyo shacabkana dareenka ka qabaan iyo aqoon-yahanka dareenka ka qabaan sidaasna qiimeyn mideysan oo shacab ahaan iyo aqoon ahaan bulshada kala duwan iyo qaab dhismeedka iyo xisbiga si wada jir baan u qiimeyn doonaa sidaasna waa ku qeexi doonaa dhibaatooyinkii aan lahayn iyo jihada aan inaan saxnay tahay kadibna waxaa la sameyn doonaa shirar kale oo isdaba jooga oo shacabku markaan deegaanka u dhaadhacno ayaa la qaban doonaa shirarkaas kadib ayaa marka qaab dhismeedka dowliga deegaanka dib u habeen lagu sameyn doonaa ayaa la dhis doonaa marka jiha cusub in la galo dhibaatooyinkii jiray laga danqado la qiimeeyo laga baxo xubnaha dhibaatooyinka baanelena si nidaam sharciyeed sareynta sharcigana in la ilaaliyo waa mid dhammaan shacabka wadatashi ballaaran aan la yeelan doono geedi socodkaas weeye geedi socodka ummadda dhibaatooyinka soo garay lagu saxayo qaab dhismeedka dowliga lagu saxayo sidaasna deegaankeenna waa inuu noqdo deegaan adag kartideenna awoodda aqoon-yahaneed aan isticmaalno xisbigeenna aan dhisno maamuladeenna aan dhisno midnimo soomaaliyeed la abuuro midnimadaasna nabadgelyadeenna iyo horumarkeena aan ka shaqeyno iyo ka faa'iidaysiga dimuqraadiyadeed ee shacabkeena aan kor u qaadno ka faa'iidaysiga horumarinta kor u qaadno marka wadatashi shacab iyo wadatashi shacab unbaanu ku shaqeyn doonaa shacabka waanu dhageysanaynaa wadatashigaas unbaa go-aanada kala duwan ee gaari doona xisbigana hadda kadib ma noqonayo go-aanada miduu isku koobayo go-aano wadatashi ballaaran odayaasha iyo aqoon-yahanka si wada jir loo sameeyey ayaa go-aanada weyn la gaari doonaa marka qaab dhismeedka dowliga dib u habeen lagu sameeyo kadibna shirweynaha xisbigana kadib baan marka cilaaminaynaa sidaas marka kartida iyo fulinta awoodda iyo hogaaminta sidaa u dhisi lahayn xisbigana markaas waa la gudagali doonaa geedi socodkaas isixitaanka oo ballaaran buu xisbiga uu ku jiraa doonaya shacabkuna inuu ku garab galo mahadsanidin